Laba jeer ku guuleystayaasha Koobka Adduunka Faransiiska ayaa doonaya inuu gaaro semi-finalkii saddexaad oo xiriir ah, balse waa inuu marka hore ka gudbaa Morocco kulan ka dhacaya Boston Stadium Khamiista. Kulanku wuxuu dib u soo celin karaa kulankii semi-finalka Koobka Adduunka sanadkii 2022 markaasoo Faransiiska ay 2-0 ku garaacday Morocco. Kooxda ku guuleysata waxay semi-finalka la ciyaari doontaa kooxaha ka soo baxa Spain iyo Belgium. Faransiisku wuxuu soo bandhigay qaab ciyaareed aad u wanaagsan tartankan wuxuu ku guuleystay dhammaan shantii kulan ee ay ciyaareen, iyagoo ka soo baxay Group A kadibna ka adkaaday Sweden iyo Paraguay. Inkastoo Paraguay ay si adag u difaacatay, gool rigoore uu ka dhaliyay Kylian Mbappé ayaa Faransiiska u xaqiijisay guushaas. Ilaa iyo hadda, Faransiisku waxay dhaliyeen 13 gool tartanka Koobka Adduunka 2026. Weerarka Faransiiska waxaa hogaaminaya Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise iyo Bradley Barcola. Sidoo kale, Desire Doué ayaa door muhiim ah ka qaatay isagoo kasbaday rigooradii lagu garaacay Paraguay. Tababare Didier Deschamps oo tartankan kadib ka tagaya xulka Faransiiska wuxuu ku guuleystay 11 ka mid ah 12 kulan ee ugu dambeeyay ee tartamada rasmiga ah. Wuxuu doonayaa inuu gaaro guushiisii 20aad ee Koobka Adduunka, isagoo maamuli doona kulankiisii 20aad ee Koobka Adduunka. Morocco waxay raadineysaa guushoodii ugu horeysay 90 daqiiqo gudahood ay ka gaarto Faransiiska, maadaama 6dii kulan ee hore ay 4 jeer laga badiyay Morocco. Kulankoodii ugu dambeeyay ee tartan rasmi ah wuxuu ahaa semi-finalkii Koobka Adduunka sanadkii 2022 markaasoo Faransiiska ay 2-0 kaga adkaatay Morocco. Morocco ayaa mar kale sameysay taariikh cusub oo kubadda cagta Afrika ah, waxay 5 kulan oo World Cup ah ku bilaabeen guuldarro la'aan. Kooxda uu hogaamiyo Mohamed Wahabi waxay kaalinta labaad kaga soo baxday Group C, kadibna rigooreyaal ay ku reebeen Netherlands halka ay si cad u garaaceen martigeliyayaasha Canada. Morocco hadda waa 10 kulan oo xiriir ah aan laga badin tan iyo finaalkii muranka dhaliyay ee Koobka Afrika, balse Faransiiska ayaa noqon kara imtixaankooda ugu adag. Sports Mole waxay aaminsan tahay in kulankan noqon doono mid aad u adag oo fursado yar leh, balse tayada weerarka Faransiiska iyo ciyaartoyda khibradda leh ayaa ugu dambeyn horseedi doonta inay u gudbaan semi-finalka, xitaa haddii loo baahdo waqti dheeri ah. Haddii aad nagu cusub tahayna, subscribe noo saar. Waad mahadsantahay.